أهلا وسهلا أصحابي ميل كستات جوتان كسو دوادا برنامج كعيارها حلو ميل كستات كلا سوعتان بارتينا يوتيوب كعيارها لا تنسوا كسو دوادا مقال كان عصوب أمانتا إيجي دون وارنتي مقال أدوحو السلام كويجي دونو كل مانتا لعياري دونو ka tirsan horyaalka Champions League aad moodaa maanta inuu noo bilowday dabcan waxaanu eegi doonaa kulamada maanta kuwa filaya kuwa derbiga ayaanu eegi doonaa ay ka mid yihiin Barcelona iyo waliba Bayern Munich inkastoo inay kulanka ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Barcelona la xasuuq maanta se ma argudan doonaan waa su'aal runtii aad moodaa inta badan wargeysyada caalamka kuwa ka faallooday ciyaaraha ay wax ka qoreen ayaan anaguna falaqayn dheer ku sameyn doonaa soo kale waxaanu eegi doonaa kulanka ugu horeeyay maanta ciyaari doona Ronaldo 12 sano kadib isagoo gashan maaliyada Manchester United hadaan ugu cusubtay subscribe noosar hadaan ay mitay like nu dhiragay waa maalin kale iyo maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 14 September 2021 waxaana noo bilaabanaya kulanka xiisaha lahaa ee kulanka qatarta ee UEFA Champions League inkastoo ay kooxda kubadda cagta Chelsea ee ka tirsan dalka Ingiriiska haystaan koobkan maanta ayuu bilaaban doonaa mar kale kulanka ugu horeeyay ayuu wuxuu dhexmari doonaa naadiga Young Boys oo soo dhaweyn doonto naadiga Man United Ronaldo ayaana maanta ciyaari doona naadiga Manchester United 12 sano kadib waxa uu in Ronaldo Champions League ugu horeeyo oo kula guuleystay naadiga Manchester United 2008 isagoo ka qaaday kooxda iminka haysta horyaalka ee Chelsea gool kulaad inkastoo in Ronaldo oo gool kulaadkaas uu qasaaray hasaatee soo kaleetay ciyaaryahan Sancho ayaa kulankiisa horeeyay ciyaari doona United kulanka kale la filay in la ciyaaro isla saacada ciyaarayso naadiga Man United waa kulankii dhexmari doono naadiga Sevilla iyo waliba naadiga kale ee Salzburg saacadu marka ay tahay 7 qadar 45 daqiiqo labadaas kulan ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta Chelsea ahna kooxda haysato horyaalkan Champions League eminka oo bilowday safarkiisa ayaa waxay la ciyaari doonaan naadiga Zenit waxa ognahay in soo kale ciyaaryahan Lukaku uu ciyaari doono naadiga Chelsea kulankiisa ugu horeeyay Champions League isagoo gashan maaliyada Blues inkastoo ognahay in ciyaaryahan Lukaku uu ka soo biray naadiga Chelsea mar labaad lacag rikoor taasoo gaaraysa ilaa 115 milyan waan ciyaaryahan ku qaalisan ay koox soo gadatay ibid koox ka ciyaarta horyaalka Premier League Lukaku saacawse muu dhalin doona goolkiisa ugu horeeyay abad naadiga Chelsea ee Champions League waa su'aal runtii inta badan la isweydiinaya macallin Thomas Tuchel ayaa safarkiisa labaad u bilaaban doona maanta ma laga yaabo in difacda koobka mise haya inta badan waxa dhacday in naadiga Real Madrid ay qadeen 3 jeer isku xigtay Champions League Tuchel say wadadaasi ma tijaabin doonaan kulanka kale derbiga la wada sugay waa kulankii dhexmari doono naadiga Barcelona iyo waliba Bayern Munich waa kulan runtii aad u xiiso leh inkastoo ognahay in kooxda kubadda cagta Bayern Munich ciyaarta cusub ay ciyaareen 6 kulan 6 dib ay wala badiyeen waxaana dhaliyeen 28 gool runtii Barcelona haddii aanayno 3 kulan ay ciyaareen runtii wax kulan laga badiyay ma jiraan balse qaabka ay u ciyaarayaan ayaad moodaa inay tahay mid aad u liidata siba difaaca ayaa mid aad u liita marka way adag tahay inay qabtaan weerarnimada naadiga ee Bayern Munich Lewandowski Gnabry iyo loo ku kala moodeynayeen ku aad u qatara waxa soo kale taxasuus midan in naadiga Barcelona aysan caaw wadanin ciyaaryahankooda weyn Lionel Messi kulanka ugu dambeeyay labadan kooxood ay kulmeen Bayern ayaa waxa ay direen naadiga Barcelona 8 gool iyo 2 runtii waa suuq aad iyo aad u weyn marka caaw waxa loo fadhiyaa kooxda kubadda cagta FC Barcelona ma ka goon doonta naadiga Bayern Munich mise gool daro kale ayaa dhabarka loo saarin doona waa su'aal runtii inta badan la isweydiinaya siba taageerayaasha kuwa taageera kubadda cagta iyo waliba dadka ka faalooda sportiga ciyaaryahan Dybala ayaa ciyaaryahan inta badan iminka ku tiirsan tahay naadiga Catalan ee ka tirsan dalka Spanishka kulamada kale oo la filay caawin la ciyaaro haddii aan eegno naadiga Dynamo Kiev ayaa waxay soo dhaweyn doontaa naadiga Benfica saacadu markay tahay 10 habeenimo Villarreal ayaa qaabili doonto naadiga Atlanta ee ka tirsan dalka Talyaaniga halka naadiga Lille ka socoto dalka Faransiiska ay soo dhaweyn doonto naadiga Wolfsburg ka socoto dalka Jarmanka Chelsea ayaan hore u sheegnay la ciyaari doonto naadiga Zenit halka Malmo ay soo dhaweyn doonto
marwada cajusada ee Juventus inkastoo ognahay in naadiga Juventus uga tagay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ku biray naadiga Manchester United muddo inay aad u liitaan qaab ciyaareedka ay soo bandhigeen sida horyaalka Serie A Juventus ay imka ku jirto kaalintii 16aad caawse Malmo maxaa se dhexdoon Sporting